السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي ولا لا شرفت لا كحرن channel كيجا سيدا ودنتين كسر هذا قام فرن قلبي صافية إن شاء الله تعالى هالك إجلا صعطان وما يوتيوب channel كي يوتيوب عن كل هاي نعيم كي channel كسر هذا إذا ليه أصحاب تهذا عصب وصو بيرايان وحيد ليه هاي سبسكرايب كنا صارا إن شاء الله تعالى أنت update كأه ayaantan waxaa jira barnaamij social media haystay oo yani culeyskiisa wato marka insha Allah taala ani barnaamijkayga saa ogtihiin ama YouTube channelkayga inta badan waxaan uga hadlaa waxyaabaha oo dumarka anfacayo sida cunto karinta maxaa la dhahaye to iyo qurxinta insha Allah taala challenge ina sometimes soo gali waa laga yaabaa maana ka marmo inaan ka hadlo markaas yani arinta xasaasiyada leh ee markaas media ka taagan anoo qofna ku xad gudbeenin insha Allah taala waxa markaas social media heesta inaan wixii Ilaahay karansiyo yani aan ka hadli karo inaan ka hadla isku dayaya kuna darso xisaabta yani aan laftirkay qof dumar ahay barnaamij dumar ku saabsan ma ka hari kari mi faanteen dumarku waa ogtihiin yani waxaa lagu leeyahay ma kala haraan okay intaas daan uga haro barnaamijka furfuritaankiisa maanta barnaamijkan oo wiilkan ashkay oo qabto maxamed ashkay ku nafis walaalka maxamed ashkay la dhaho ayaa waxa la wareystay xalay hani xaaskii hore ee Kamaal intaan aqoonin Kamaal Cabdul gabadhi ay isqabeen ayaan hore iyadana yani xasrad zaid ka ahayd ku kacsaneed gabadhi ayaa hadashay isla markaana si qiiro leh ama naxdin leh ay u hadashay hadalada yani zaidka ii saameeyay waxa kamid ah inay dhahday habeen dhan aan salaad u taagnaa oo Ilaahay baryaayay Ilaahu Rabbi Raxmaan qofkii dulmiyay ka soo saar aan lahaa habeenkii oo dhan aan salaad waagi iigu bariyay aan salaad tukanay yani gabal ay waagi iigu bariyay dhahday marka insha Allah wareysigaas ayaan hal iyo laba ka dhihi doonaa haduu alla yiraahdo waxyaabaha qiirada leh ee ka hadashay ayaan hal iyo laba ka taaban doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala sa ogtihiina Ilaahay ma jeclo in adoomankiisa la dulmiyo bilaadankan inay is dulmiyaan xaraan waaye qofka walaalkiis inaad qofka kale inuu dulmiyo waa xaraam gabadhan si sheegayso oo hadalkeeda aan iga dhax bixi doono oo dhageysan doontaan haduu Ilaahay yiraahdo waxay ka hadli doontaa arimo badan oo dulmi loo geystay iyada oo ay ka tabanayso dadka qaar media ku jiro isla markaana maanta dad ka mid ah maanta maxaa la dhahaa dhacdadeedii dhaclo la mid ah ay ku dhacday yani arinta iyada ka cabaadaysay oo yani harsi iyo hoyad loogu diiday arin la mid ah ay maanta haysato shalay si cariir ugu jirtana maanta ay cariir ugu jirto mar walba gabar Soomaaliyeed rafaadayso mar walbana iyaga baan bridge noqonayo gabdhaha Soomaaliyeed marka insha Allah isku badnaada idinkana qofka markuu weyn yahay gabar yar oo foodley ah wax way ku dhici kartaa anisa aaminsanahay 16 sano 15 sano aqligeeda ma qaybsamayna la dhihi karaa laakiin ruux weyn maxaa fiican inuu go'aankiisa u qaato marka insha Allah taala mar walba ducadiinana meesha ku jirto isxir ducadiina maxaa la dhahaa akhrista cadow badan ee gabdhihi yeesheen marka waxa fiican mar walba ina Ilaahay isku dhiibtid Ilaahay tala saaratid adoo weyse qabtid gurigaaga ka baxdid Ilaahay shar iyo sheedaan oo dhan ka magan gashid Ilaahay wuu ku xifdinayaa Ilaahu xifdi hadaad tirahdid Ilaahay wuu ku xifdini sheekadii aan igu dheereen insha Allah waan kala dhaxbaxayaa hani wareysiga laga qaaday barnaamijkii kaale ku nafis walaal akshay wareysigeedii qaybo kamid ah ayaan ka soo qaadan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah gabdhaha kalena waxaan leeyahay tusaalaha u noqoto haduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkaas xaaladiisa xaalad xun ay ahayd qofkana horta bini'aadanka ama ogtahay markii Ilaahay lagu daayo wixii si degdeg ah uga soo baxayaan maxamed busku baanta wuxuu maraa heer ani keeyii oo hadda ma u malaysid xataa wallahi Ilaahay horta wax walba awooda ma u malaysid xataa inay wax yar ka duwan tahay
waa barnaamijkii oo sidiisii ah hala dhoo gabadhaas ilmaha dhasha hala dhoo hala qabo barnaamijkii wax uu ka duwanaa ma jirto horta anitii uu igu sameeyo horta dadki iga celiya adig ku jirta kow inaa maxkamad la qoro wadankaana waa ogtahay kala dambeyn iyo wax walbaa jiro adiga familkayga dad badanaa igala hadlay oo idhahay ilaahay ku day qofki ilaahay lagu daayana horta taas oo kale iyo maxambus hani wareysiga iyadoo sii wado waxay sheegtay in ilmo ay kasoo dilmeen problemkaas dartiisa oo markii arinta ay yani problemka uu qarxay ee xaamile ahayd marka insha Allah iyadoo ka sheekeynayso waatana hadana waxa ay la sugaysay yani arinta inta ku dhacday inay kala awood badan yihiin bal dhageysta marka barnaamijka ka soo hadla asagoo ahaa صح inkastoo soo uga soo hadlay si markaas public ah laakiin markii dambe uu uga soo hadlay si xewaanimo gabadha markay walaasha tahay hooyo ee ku dhashay asiga uu leeyahay ilmaan dhalay horta qof bini aadana saas horta lagu sameeyo inta ogtahay barnaamijkaygana inta badan waxay ahayd been la abaabulay ani stress iyo gurigan xilligaas maxaa agshay ee nimankaas barnaamijka ay igelinayaan aniga uuraan lahaa oo ilaahay og yahay horta xaaladda markaas ku jiro horta maba haddaan maanta waa ka hadlaa dhaho horta taas waxaa waaye meydda bulshada dhan inay qiiro geliso maadaama hadda tii aan ka baxay oo hadda wax meel fiican aan taaganahay laakiin waxay ahayd taas mid aanan bini aadan lagu samayn karo يعني بوقاسي قيلاس مثل كفراين أورا لهاد أو كاسو هلاوميا أبو أوركاس ببرر إنا كهذا لكن حالة مركز أكيد أورا لها مركز أورا لها وولد باللوعة إن الله وإنا راجعون صح وأنا أوجاي فمي كي أوجاين أنت إذا وقد أوجي بفهمتي ويعني ما لها ستورك أجوبي حالدينا ما أوجي وحده هاد إلا أي حد والله هذا صح حسست أنا أويا أنا مركي برا بركي بحنا بسكت كل عادة أنا أقول على عمل عادي أوي بحنا بشيء عادي أوي تي صح حسست سبحان الله يعني فيري بني آدم كأنه كلفي عين هاي حالة الشلق وود عادي مركي محن بسكت أو ضدك هو جامينة أو ضدك بوق وكوفرة أصلا كوك ما أنت حالة ده مركي قبضتي أوتوماتيك لو كحمات واللويس يعني فيري والله زايدة أصلا أشيء كم حمانين وحقق حمان جبت مساكين تا يعني واحد سنجيسن أنت بدن دي أما هنقول نبأمين هنقول نبي لكن وأصير جيست جبت أصحاب ولا ما فهمت تي ومحمد بس جبتها صوماليات وجيست أنا أقوين هذا أنا أبى يعني وبرنامج كي هقوين هذا كوضع وجيست ولا لا بس ولا هو يده كله ده هو يده هو يده سك أنا ناقص هذا بورسي أنا أسوي جهنم أبا هو يده سك بتاعي waa maqlaysaan marka si uga hadashay arinta wallahi si xasaasiyad leh oo qiiro leh uga hadashay wareysigan qayb aan ka soo goyni doonaa haduu ilaa yiraahdo waxyaabaha aan ku dardari doonana waan ku darayaa wixii ra'yigayga ah gabadha miskiinta iyadoo xaamilo ah يعني سيربتا waa ku guursato nimanka miday yaqaanaan gabadha hadii ninka kala tagaan ma rabaan yani inay duurkeeda qaado hanina way sheegi doontaa laakiin waxay leedahay yani ninkan waa kala tagnay markii inay guursatay maqashay uu maqlay ayuu yani ku rikaateeyay inuu wili qabo marka arintaas lagama wada hadlin ayaantii sheekada kacsaneed qof walba wuu iska aamusay yani dhinaca waxa la raadinaya negative-ka kaliya oo yani maxaa la dhahayeeto gabadha leela bursanaysa ogeedeen kulli intii qofay ka soo hadashay ragay u badnaayeen gabdhaha barigaas wax ka soo hadlay maba arkin hal gabar bis arkay oo ka hadlayso laakiin ayaantaas hani iyo kamaal sheekadooda markay taagneed inta badan waxa ka hadli jiray niman kale iyagoo mar walba yani cadeemo keenayo marba dhahayo hani ilmay ka soo tagtay hani saani yeeshay kanay sameysay yani waxyaabo negative oo ka sheegayo marka wixii xaqiiq horta Allah subhanahu wa ta'ala og qof la dulmi iyo qofkii wax dulmina ilaahay baa og ani ma gali kari arintaas waayo ma joogi arinta meesha ka taaganta ani marka ma xaadir mihi mana rabo wax qayb ah oonan ogeyn inaan ka hadlo oo yani afkayga aan dulmi iyo aan ku raasado been aan ku sheego haddana waxa ila dhageystaan maray dhahayso hani yani habeen dhan aan taagnaa oo ilaahay baryaayay inuu ilaahay dadka i dulmiyay oo ilaahay ka soo saaro cuqubada ay iga galeen inaan afiima ah wallahi waxa
xasuustaa anoo turki joogo habeen salaada bilaabay waaga iigu barya caadi inuu ilaahay dadkaas dhibka uu kasoo saaro yani hadda waxaan arkaa dad badan hadda iyo cafi dhahay maalinka salaada aad dukanayo kale soomaalida salaada iita waa markaa kasoo baxay meel amara waa maxamed abshay qof walbuu ku imaanaa wuxuu dhahaa nacafi dambiga kaa dhan waa dadkii xataa komitiyada yaryarkaa soo qoraay tiktok maanta haddaa wax dhigo qof walba wuxuu ku dhahaa nacafi saan annaka ma kuu malaynaynin instagram waa kasii daran marka ani waa sii bulaalay marka waxaa ugu darnaa lahayd maanta ani caadiyaaba ahaay qof meel degan shaqaysata wadan horumari joogta waxbarata ahaay gabar masaakiin oo soomaaliya joogta hadday intaas ku samayn lahaayeen ma isdili lahayd gabadhaas bas isma dishay wallahi sister ama Soomaaliya ha joogto ama yeesay joogin laakiin xaaladda ku soo martay qof adag bisa ka soo gudbi karo alxamdulillah oo maray anigu waa fahmi karaa maanta walaalkay inta aniga weli alwasha kama haysto oo shalay markay ku dhacdo xoogaa waa ka damqaday laana waxaan ogaa inuu wadadii inuu maraayo maanta ama run ha ku asiga waa ugu bareeray dambi oo galani dambi qofna weligay kama dhin weligay maxamed abshay laba nin isla guursatay iska dhaatay nin ajnabi iga xataa weligay sawir lama gelin inta meel istaa nin ajnabi iga iska dayna nin kale inaan guursado wadanka lagu dhoofay marka taas horta tii ilaahay ayagaa ka jaasay inaa dad badanaa jira weli aysan kasoo bixin oo imraan oo kamidka oo u fadhiyaan weli dad badanaa ku dhiman miyaa sister yani calaash weli ma furin miyaa no dad aan cabinaynina joogo oo imraanka koow uu yahay ilaa hadda uu iga dhuumana xataa taleefankiisa xataa ma raba inuu qabto dadkii igu imraanna ilaahay wuxuu og yahay ilaahay asagana ciqaab kaluu marsiiyo oo raba ani inaan hadda inta ka sheego ma rabo ciqaab rabbaaniyaha haysato imraan dadku ma oga laakiin inteena iswiidan la degan waa ognahay sister ani korkii oo dhan uga soo baxay intii soo wacay rahaniyay dadkii dambiga kaa gala ku jira iyo cafi sister aan waxaan ka codsanaa waa maqlaysaan arinta meeshii kusoo gabagowday inay gabadha tiraahday habeen dhan ilaahay hortaagnaa oo ilaahay baryaayay inuu ilaahay dadka idhibaayo oo ilaahay kasoo saaro marka ilaah waxaan ka magangalnay inaan qof bilaadan dulmino haddii waxaan anagoo ogeen naga dhacayn ilaah waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay naga saamaxo inta xanuunsan allaha caafiyo inta culayska saaran culayska allaha ka qaado inta muraad leh muraadkooda allaha u saqiro inta insha allah barnaamij dambe kula kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka sii sheergareeya asxaabtiina la wadaaga like-tan hana la dhaafina subscribe noo saara waana mahadsantihiin sa ay la socotaan mar walba jazaakum allahu alfa kheer waa mahadsantihiin dhammaantiin walaalaha sharafta leh